بسم الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caawa ee qodobada aan idinkuga haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha Iran oo si kulul uga hadlay weerarkii Mareykanku ay ku qaadeen xarumaha nuclear-ka ee dalkiisa taliska ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee dalka Iran waxay ku celiyeen in Mareykanku uu u diyaar garoobo jawaab argoosi ah oo xanuun badan tani waxay ku soo aadaysaa iyadoo indhaha caalamka oo idin ay ku sii jeedaan Iran isla markaasna bariga dhexe laga cabsi qabo in uu galo dagaal balaaran wadamada gobolka oo ay ku jiraan kuwa khaliijka ayaa la sheegayaa inay bilaabeen u diyaar garowga sidii xaaladan ay u wajihi lahaayeen oo la qabsan lahaayeen gaar ahaan wadamada Bahrain iyo Kuwait kuwaasi oo walwal ka qaba xaaladan inay si gaar ah u saameyso waxaan kaloo eegi doonaa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo albaabada ka dallacday isla markaasna lagu soo waramayo inuu diiday wadahadal inuu la yeesho madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sida ay sheegayaan mas'uuliyiin ka tirsan aqalka Kremlin-ka waxaan kaloo eegi doonaa Iran iyo Israa'iil oo weerar isku haya dhinaca kale lamaha ammaanka Iran ayaa waxa ay daboolka ka qaadeen inay gacanta ku dhigeen canaasir u shaqeynaysa sirdoonka Israa'iil wararkan iyo kuwa kale iyo qodobo wixii soo kordha iyo falaqaynta ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijkan wararka caawa maxamed Cabdi wararkan isku soo duway ayaa qadka ku jira maxamed aan ku bilowno dhanka Iran oo aad moodo hadallo kulkulan inay weli ka imaanayaan madaxweynaha Iran Mas'uud Pezeshkian ayaa sheegaya in weerarkii military ee ugu dambeysay ee Mareykanka inay dabool ka qaaday in Mareykanku uu xudun u yahay cadowtinimada gobolka bariga dhexe ku wajahan waxa uu sheegay Mareykanka in gobolka ay ama xukuumadda Israa'iil inay muhiim u tahay una ku qasbay in ay dagaal ka qaado sida Pezeshkian madaxweynaha waddanka Iran hadalku u dhigayo walaadan waxay muujinaysaa in Mareykanka uu ku qasbay tallaabooyinka naga dhanka oo Israa'iil qaaday wuxuu ku nuuxnuuxsaday Israa'iil xukuumadda la yiraahdo awood ku filan ma laha ay weerar nagu qaadi karto annaga oo iyada u gaar ah Israa'iil awood ay nagu soo dhacdo oo weerar noogu soo qaado kaligeed ma laha ayuu yiri madaxweynaha Iran waxa kale oo sheegay in Iran faralka argudashada ay qaadayso ka dhanka Israa'iil weeraradiisa ka dhacay wuxuu jawaab u ahaa siyaasadda guracan ee cadowtinimada ee waddanka Mareykanka dhanka kale ciidamada ilaalada kacaanka ayaa digniin u jeedinaya dowladda Mareykanka inay isu diyaariso argudasho xanuun badan ciidamada ilaalada kacaanka ayaa waxa ay sheegayaan inay isticmaalayaan khiyaaraad fara badan oo dowladda Mareykanka iyo Israa'iil ayna fahmi karin waxaana waajib ah inay naga fishaan jawaab ay aad uga shalaayi doonaan ciidamada ilaalada kacaanka ayaa waxay ku tilmaameen argudashada inay tahay mid qaanuuni ah oo ay xaq u leeyihiin Iran inay naftooda ku difaacdaan ciidamada ilaalada kacaanka ayaa sidoo kale ogsoon xaaladda iyo wax allaalihi waxa ku gadaaman dagaalka lagu soo qaaday weligeedna cabsigelin ma ka qaadanayaan ciidan madaxweyne Trump iyo kooxda burcadda ah ee Mareykanka iyo Israa'iil xukunta sida lagu sheegay bayaanka ciidamada ilaalada kacaanka ah waa gartay waa yahay dhankaas waa dhanka Iran Mareykanka hadallo cusub ka soo yeeray oo ka dambeeyay sheegashadii Trump uu sheegtay in Mareykanku ay burburiyeen xarumihii nuclear-ka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo waxa hadlay xogayaha gaashaandhigga maxay sheegeen maxamed madaxweyne ku-xigeenka waddanka Mareykanka JD Vance ayaa ku andacoonaya in weerarka Mareykanku ahaa mid guuleystay oo dib u dhigay barnaamijka nuclear-ka ee waddanka Iran wuxuuna intaas ku daray madaxweyne Trump inuu hadda ku rajo weyn yahay in uu wadiiqo xal diblomaasiyadeed qaado madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxa uu sheegayaa Mareykanku ma doonayaan dagaalkan inuu dheeraado mana rabaan buu leeyahay in ay ka shaqeeyaan arrimo hore u socday waxaan doonaynaa buu yiri in la soo afjaro barnaamijka nuclear-ka ee waddanka Iran sida uu sheegay mid ka mid ah warbaahinta waddanka Mareykanka waxaan doonaynaa buu yiri in wada hadal la galo Iran la xiriira sidii arrintan muddada fog lagu xalin lahaa dhinaca kale xogayaha gaashaandhigga ee waddanka Mareykanka Pete Hegseth ayaa amaanay
ciidamadii dhowaan howlgalka maraykanka howlgalka iiraanka dhankaa qaaday wuxuuna ugu yeeray inay yihiin geesiyaal shaqada ay qabteenna ay tahay mid aad u weyn wuxuuna ku sheegay in ay ku guuleysteen inay burburiyaan awooddii nuclearka ee waddanka iiraan waxaan maareynay buu yidhi inaan burburino barnaamijkii nuclearka ee waddanka iiraan wuxuuna ku nuuxnuucsaday in duqeyntaasi ay u dhacday si taxadar ah duqeyntana waxa uu ma ahayn bartilmaameedkeeda ciidamada iiraan iyo shacabka iiraan toona sida laga soo xiganayo xogayaha gaashaandhigga ee waddanka maraykanka dowladda maraykanka waxa ay u fulisay bartilmaameedkan xagga duqeynta cirka ah ee 3 goobood ee lagu taygeliyay barnaamijka nuclearka iiraan si taxadar leh wuxuuna ku tilmaamay howlgalkaasi inuu ahaa mid ku dhac iyo geesinimo leh waxtarna leh howlgalka ka dhanka iiraan waxa uu ahaa mid aad u weyn iiraan barnaamijkeeda nuclearkana meesha ayaa laga saaray ayuu kusoo gabagabeeyey waa gartay waaya dhanka iiraan aynu eegno warbaahinta iiraan waxay leedahay waxaa socda dhaqaaq ballaaran oo jawaab ah warkaas dhiilada xambaarsan maxaa laga sheegay wakaaladda wararka ee faris ee dalka iiraan laga leeyahay ayaa sheegaysa in iiraan ay isu diyaarinayso inay howlgallo gaadma ah oo ka dhana iiraan ay qaado halka ay kasii wadi doonto inay si dhow oola socoto xeryaha militariga ee maraykanka uu ku leeyahay gobolka bariga dhexe warbixinta ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in hadafka guud ee iiraan in uu yahay sidii looga takhalusi lahaa xukuumadda israa'iil waxayna u arkaan in waxa saameynta ah ee gobolka bariga dhexe ka socda oo dhan inuu maraykanka u abuurtay israa'iil iiraan ilaheeda ayaa waxay ku nuuxnuusanayaan in waddanka uu leeyahay qaab istiraatiijiyadeed oo ku xaqiiqsanayo in faragelinta maraykanka aynan marna caqabadayn in qorshayaasha iiraan ay ka leedahay waddanka iiraan ay meel mariso waa gartay waa yahay warar kale waxaa sidoo kale soo baxay maxamed la xiriira duqeynta maraykanka uu qaaday oo warbaahinta reer galbeedku ay faahfaahin ka bixinayso maxaa laga ogayahay arrimahaasi warbaahinta reer galbeedka ayaa ku waramaysa qariidooyin uu soo bandhigay ay soo bandhigtay wasaaradda gaashaandhigga waddanka maraykanka pentagonka loo yaqaano in diyaaradaha B2 ee istiraatiijiga ee wax duqeeya ee weerar ku qaaday iiraan goobaha ay soo mareen oo isugu jira badda mediterraneanka israa'iil jordan iyo ciraaq waxaana muuqata in qariidadaasi ay ku muuqato meesha ay soo mareen markay duulaanka soo qaadayeen waa gartay gudaha iiraan aan dib ugu laabanno waxaa la sheegayaa in weli la sii wado qabqabashada kooxaha canaasiirta ee ku xiran sirdoonka israa'iil maxaa ugu dambeeyay arrimahaasi garsoorka waddanka iiraan ayaa ku dhawaaqay in shakhsiyaad dhowra oo la xirxiray lagu soo oogay dembiye ah basaasnimo iyo argagixiso waxaana ka mid ah nin muwaadin ah oo u dhashay yurub ama qof muwaadin oo u dhashay yurub sida laga soo xiganayo bayaan ka soo baxay garsoorka 3 qof oo mid ka mid ah uu yahay muwaadin yurub u dhashay ah ayaa waxaa lagu xiray galbeedka gobolka kermashah waxaana loo haystaa dembiye basaasnimo ah halka xaalad kale ay cadaaladdu xaqiijisay in 4 qof oo la xiray lagu tilmaamay inay yihiin argagixiso kuwaasoo lagu eedeynay inay diyaarinayeen weeraro ka dhana caasimadda teheraan halka qofka shanaadna lagu warramay in markii la rabay in gacanta lagu dhigo uu isdilay ka hor inta aanan la qaban waa gartay meelaha arrintan sida weyn looga hadlay weerarka maraykanka waxaa ka mid ah ruushka iyo warbaahintiisa oo si adag loo dhaliilay waxaa soo baxaya faahfaahin dheeraad ah oo laleeyahay Putin maradaha ayuu ka dalacday inuu telefoonka kula hadlo madaxweynaha maraykanka arrintaas maxaa laga yiri wakaaladda wararka ee ruushka taas loo yaqaano ayaa soo xiganaysa aqalka looga taliya waddanka ruushka ee kremlinka oo sheegaya in madaxweynaha ruushka aynan hore ugu qorshaysnayn inuu la hadlo madaxweynaha maraykanka Trump weerarkan uu ku qaaday waddanka Iiraan iyo kaabiyaasheeda inuu kala hadlo hay-adda wararka ee taas ayaa waxay intaas ku daraysaa madaxweynaha ruushka mar hore ayuu caddeeyey in uusan diyaar u ahayn in si degdeg ah lagu abaabulo telefoon ay ku wada hadlaan
marsii horeysay afhayeenka madaxtooyada waddanka Iran Dmitry Medvedev halkaan ku celiyo marsii horeysay mas'uulka ku xiga hay'adda amniga qaranka ee waddanka Ruushka isla markaasna madaxweynihii hore Dmitry Medvedev ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu bilaabay dagaal cusub oo ku weeraray waddanka Iran. Trump ayaa hore u sheegay in ciidamadiisu ay duqeeyeen 3 goobood oo nuclearka lagu talageliyo oo waddanka Iran ku yaala, wuxuuna digniin ku bixiyay in Iran uu kala kulmi doono weeraro burbur oo aad u weyn haddii ay nabad qaadan weyso. Waa sidoo hadalku dhigay Medvedev ayaa waxa uu bartiisa Telegramka ku qoray Trump oo ku yimid madaxtinimada in uu nabad ilaaliye noqdo ayaa hadda dagaal cusub Mareykanka u bilaabay. waa tahay maxamed, waa mahadsan tahay. daawadayaashana ay mahadsan yihiin. mar kale ayaan soo dhaweynaynaa daawadayaal. waxaan u gudbaynaa falanqayntii iyo wixii wararah ee degdega ah soo kordhay, laakiin aynu ku hakano qadar xayeysiina. xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa inay qiimo dhimis weyn ku samaysay adeegga ultrasound scanka, iyadoo qiimihiisa laga dhigay 150 pound oo kaliya halkii uu ka ahaa markii hore 240 pound. waxaa sidoo kale xarunta ka howlgala Dr. Akan Efe oo ah dhakhtar rugcadaa ah kana soo shaqaynayay howlaha caafimaadka muddo ka badan 30 sano. Dr. Akan Efe wuxuu xarunta ka howlgalaa maalinta Arbacada usbuuc kasta. wixii faahfaahin ah oo intaa dheer kala xiriir lambarada emailka iyo baraha bulshada ee shaashada kaaga muuqda. soo dhawaada mar kale daawadayaal, wali waxaad la socotaan barnaamijkii wararka caawa. hagaag maxamed, aan ku bilowno. dabcan indhaha caalamka dhan waxa ay ku sii jeedaan dhagtan loo taagayaa jawaabta Iran ay bixinayso. qobarada qaarkood waxaa leeyahay arrintan waxay noqon kartaa arrin aad iyo aad u adag, gobolkana xaalad adag gelin karta. Cabbaas Alaani ayaa kamid dadkii ugu dambeeyay oo ah nin khabiir ah arrimaha gobolka aad ugu xeel dheer, fadhigiisina uu yahay dalkaasi Iran. muxuu sheegay ninkaasi maxamed? Cabbaas Alaani oo ah cilmi baare ka tirsan xarunta istiraatiijiyada daraasaadka gobolka Bariga Dhexe oo fadhigiisu yahay magaalada Tehran ayaa sheegaya in derbiga is-aaminad la'aanta ee Mareykanka iyo Iran u dhaxeeya inuu yahay mid mar ka dambeysa sii dheeraanaya. Iran waxa ay la tahay in dowladda Mareykanka marka hadda la fiiriyo ay barnaamijka nuclearka u isticmaalaysay marmarsiyo ah inay cadaadis ku saarto, isla markaana ay ku bilowdo weeraro ka dhana waddanka Iran si ay Iran u weeqdo iyada oo wada hadallada ku marin habaabinaysa. hase ahaatee ilaa ay hadda waddanka Iran uma muuqato in uu geli doono dood colaadan hoos loogu dhigayo. Alaani ayaa waxa uu sheegayaa Iran inay kaarar badan haysato ay cayaari karayso, waxa ay ka bixi kartaa buu leeyahay heshiiska caalamiga ah ee faafreebka hubka sida baahsan wax u gumaado NPT loo yaqaano. waxay kaloo dardargelin kartaa buu leeyahay barnaamijkeeda nuclearka oo ay samaysan kartaa. waxay kaloo halis u dhigi kartaa xiriirka ay la leedahay hay'adda faafreebta barnaamijka nuclearka ama xakamaysa qaramada midoobay ee IAEA. waxaa dhici karta buu leeyahay in Iran ay ku dhaqmayso siyaasad ah sug oo fiiri ilaa iyo xaaladaha siday u dhacayaan. waxaana muuqata buu leeyahay in Iran khiyaaradeedu ay badan yihiin. waa gartay khiyaarada waa sii fiirin doonaa. dhinaca kale aan ka eegno dagaalkan waxaa leeyahay Mareykanka maba hab arrin cusub, muddo dheer baa la diyaarinayay. maxay kale oo khibrada ka tira waxaa? Colin Clark oo agaasimo ka ah hay'adda cilmi baarista ee Sofan la yiraahdo oo qayb ka ah dadka macluumaadka caalamiga ururiyana la taliyo u ah ayaa waxa uu sheegay dowladda Mareykanka weerarkan Iran ka dhanka ah waxa ay waday muddo dheer. ciidamada Mareykanka waxa ay mar walba haystaan buu leeyahay khiyaaraad fara badan oo ay weeraro ku abaabulaan sida Clark hadalku dhigayo. Clark waxa kale uu sheegayaa marka la fiiriyo taariikhda Mareykanka ee dhow
gobolka bariga dhexe hay-adda dhexe militariga sitcom loo yaqaano ayaa waxa ay door weyn ka qaadataa qorsheynta dagaalada. waxa ay nala tahay madaxweynaha in uu ka doortay weerarkan uu Iiraan ku qaadayo khiyaaro fara badan oo loo soo gudbiyey. Clark ayaa sidoo kale waxa uu sheegayaa khiyaano ayaa ku jirta Maraykanku waxa uu sameynayay marka la fiiriyo waxa dowladda Maraykanku ay sheegayso oo ah in ay ka soo horjeesatay wixii la sameeyey. dowladda Maraykanku waxay ka hadlaysay inay diblomaasiyad riixayso, laakiin xaqiiqada meesha jirta waxay dagaal ayay abuureysay. waxa ayna samaysay cid walba aragtay. wuxuuna intaas ku daray inay aad u dhib badan tahay in la isku halleeyo sawirro laga qaado satellite-ka oo lagu ogaado xaddiga iyo qotada waxyeelada diyaaradaha Maraykanka ay Iiraan u geysteen. halka dowladda Maraykanka weerarkeeda goobaha ay weerartayna macluumaadka laga hayo, sawiradaasi satellite-ka lagama akhrin karo. waxayna ila tahay in waxyeello weyn laga geystay halkaas, culayska iyo burburka hubkaasi la sheegay in lagu burburiyo meesha. waxa ay noqonaysaa mid ay noqonayso in muddo la sugo si loo ogaado, halka qiimeynta dhabta ah ay mar dambe ka soo bixi doonto. waa gartay waaya arrimaha kale oo laga hadlay maxamed waxaa ka mid ah Iiraan inaysan u arkayn arrintan mid waxyeello gaarsiisay, sida hadda goor dhaweyta uu sheegay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Iiraan oo yiri waxyeello ma soo gaarin xarumaheeni. laga yaabaa Iiraan inay haddii xabajojin loo soo bandhigo oo dhanka Israa'iilna dagaalka la joojiyo, sidaas arrinta ay ku aqbali karto, iyadoo horeyna u sheegtay barnaamijkeeda nuclearka in uraniumkii laga qaaday goobtan intii weerarka uusan dhicin. haddii marka khasaarahaasi uusan jirin, warshadii Fardowna ay fiican tahay, inaysan dagaal gelin, ma laga yaabaa arrintaas inay meesha ku jirto? dhowrkii maalmood ugu dambeeyey intii ay socotay hanjabaadda Maraykanku wado iyo dagaalka Iiraan ka dhanka ah toddobaadka qaatay, Iiraan waxay waday isbeddel la xiriira xagga hoggaanka sare ee waddankaasi. sababaha keenaya waxay ahayd waxaa ka soo baxayay Maraykanka iyo Israa'iil handadaad la xiriirta markii ay ku guuleysteen dufcadii ugu horreysay weerarka inay safkii hore ee militariga iyo ciidamada ilaalka calanka ka takhalusaan laayaan tiro sayntistyaala. waxay haweysteen in ay qorshaha ku darsadaan in ay khaarijiyaan hogaamiyaha ruuxiga ee waddanka Iiraan. hogaamiyaha ruuxiga hanjabaadaas sahal uma qaadan, waxa uu awoodiisii iyo ku wareejiyey golaha sare ciidamada ilaalada kacaanka ah. go-aanka cidda iska leh oo wax walba oo la xiriira Maraykanka go-aanka gaaraysa waa iyaga. weli waxaa guddoomiye u ah Cali Khamenei oo ah hogaamiyaha ruuxiga. waxaa sidoo kale la magacaabay 3 qof oo haddii ay isaga wax ku yimaadaan bedeli doona 3 jago isku xiga. jagooyinka kale ee ugu waaweyn sidoo kale ayaa waxaa la sameeyey taliyayaashii in meel walba bedelkeeda lasii diyaarsaday. waxayna muujinaysaa in Iiraan ay leedahay istiraatiijiya muddo foga, sida uu hadalka u dhigayo Sayid Maxamed oo ka mid ah aqoon-yahanada aadka u lafagura arrimaha Iiraan, ayaa waxa uu sheegayaa Iiraan ma joogto 1903 markaas oo Maraykanku hareereeyey Iiraan, oo Ciraaq uu joogay, oo uu joogay Afghanistan, oo uu joogay wadamada gacanka. hadda Iiraan 20 sano iyo in ka badan ayay dagaal isu diyaarinaysay, awood ballaaran ayay leedahay. go-aanka ugu dambeeyana golaha ciidamada kacaanka ayaa iskale. golada ciidamada kacaankana bayaankooda si cad ayay ugu sheegeen in xanuun weyn ay Maraykan gaarsiinayaan. wararkan faraha badan ee soo baxaya wada hadal Iiraan miiska timaado, hore ayaa loo sheegay wada hadal Maraykanka Iiraan kuma qasbi karo. Iiraan hadda sida muuqata Maraykanka waxa uu soo taabtay ujeedadii uu lahaa oo ah inuu weerar ku qaado waddanka Iiraan. weerarkaasi waxtarkiisa iyo sida uu waxyeelay ra'aaraha badan baa ka jirta oo khabiirada qaar ay waxyeelayaan
dowladda Mareykanka ay aaminsan tahay inay wax burburisay, Israa'iil ay aaminsan tahay in hawshii dib loo dhigay, hase ahaatee Iiraan ay aaminsan tahay inay waxyeello weyn gaarin. laakiin xaqiiqada meesha jirta ayaa waxay tahay go'aanka hadda waxa uu la yaalaa Iiraan. Mareykankana muddo dheer ayuu sugi doonaa. talow Iiraan maxay samayn doontaa ayuu ka daba wareegayaa inta Mareykanku arrimahaas ka fikirayo ay qorshahan kala wadaan. waxa weeye dagaal waxa weeye nafshid ah oo cilmi nafsi ah, xanuujinta iyo burburinta Israa'iil ku hayaana waa sii soconaysaa, oo ah weerarada ay ku qaadayaan Iiraan waxyeeladeeda, Iiraan ay ku qaadayso Israa'iil waxyeeladeeda inta la ogsoon yahay iyo intaan la ogsoonin baa badan. dhammaan goobihii dowladda iyo hay-adihii aqoonta, goobihii warshadaha, agabka, shidaalka, wax walba oo ay dowladda lahayd, korontada ayaa culays xoog la saaran yahay. hawada sare ee wadanka Israa'iilna nidaamkeeda difaac cirka inuu fashilmo la isku raacsan yahay. diyaarada droonisa iyo gantaalo noocyo kala duwan ah ayay Iiraan kaashanaysaa. waxaana khabiirada qaar ay hadal ku dhigayaan Iiraan waa ka gudubtay xilligii la handadayay, waxay ku biirtay wadamada ugu awoodda weyn caalamka. waxaana lagu qiyaasayaa wadan markii saan oo kale khalkhal loo geliyo sida uu isku dubmo, isugu xirmo, iyo mudaarada waaweyn dadka Iiraaniyiinta usoo baxeen iyo falcelinta Iiraan bixisa iyo xanuunka Israa'iil ku hayso oo aan u adkeysan karin sida madaxweynaha Iiraan uu dhigayo inay kaligeed iska difaacdo. waxaa leeyahay waxaa bilowday mawduuca Israa'iil uma muuqato in Mareykanka mar dambe uu kala hadli doono Iiraan, sababtoo ah waxaa lagu tirinayaa inuu dagaalka qayb ka yahay. Iiraanna waxyaabaha ay samayn doonto cid taqaana lama arko, cid u hadli kartana lama arko. waxaana muuqata in ay arrintu markii ay dhacdo aan oga warrami doono sida Mareykanka weerarkiisa aan baryahan oo dhan uga warramaynay. HBN waxay ahayd markii la been guurayey oo Mareykanku ka hadlayay 2 week in aan soo helno macluumaad daqiiq ah oo sheegayay weerarka in saacadaha soo socda uu dhici doono wixii Isniinta ku siman. weerarkiina waa dhacay. Iiraanna waxay samayn doontaa lama yaqaano, laakiin meelaha isha lagu haynay waxaa ka mid ah biyo mareenka Hormuuz, badaha ku xeeran Yaman, deegaanada badda Hindiya iyo meesha ay ka gasho badda Carbeed. waxaasoo dhan ayaa isha ku haynaynaa. waxaana muuqata in Mareykanka iyo Iiraan xaggeeda, Mareykanka iyo Israa'iil inay cabsi badan ay soo wajahayso waxa ay damacsan tahay inay Iiraan samayso. waxaana lala yaaban yahay oo dadka yaqaana arrimaha hubka ay aaminsan yihiin gantaalada Iiraan ay leedahay sida niishaabkooda u sugan yahay iyo burburka baaxadda weyn ay u geysanayaan dhaqaalaha iyo kaabayaasha Israa'iil. waa gartay, waa yahay. ma xal ma imaan karaa hadduu yimaado se muxuu ku imaan karaa? ma jirtaa cid qaadi kartaa xagga diblomaasiyadda in xal la raadiyo? halka dhexdhexaadin waxaa loo dirsaday wadanka Ruushka markii uu labada dhinac la xiriiray Israa'iil ayaa diiday ayadoo isku halaynaysa Mareykanka. haddana waxaad moodaa xaalka siduu yahay in madaxweynaha wadanka Ruushka uunan xiisaynayn inuu la hadlo madaxweynaha Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka laftirkiisa culays badan ayaa ku furan oo ah dagaal aan dastuurka Mareykanka wadiiqadiisa la marin ayuu galay. hadday Iiraan xataa dagaal weyn geysato oo wax geysato, waxa uu u baahan yahay in wadanka uu dagaal rasmi garo Mareykanka in uu ogolaansho ka helo Koongareeska Mareykanka. waxaana muuqata hadda in idaacadaha Mareykanka iyo wadanka Mareykanka gudihiisa ay ka socoto dood la xiriirta arrintaasi. tan kale oo ayadana aan meesha ka maqnayn waxa weeye Iiraan hadda cagaha ayay dhulka dhigtay, waxayna u hanqaltaagaysaa maadaama awooddii Mareykanka ee caalamka ay wiiqantay in ay noqotay mid ka mid a dowladaha awoodda leh oo soo baxaya. Shiinaha iyo Ruushka horeyba waa loo ogaa inay nuclear leeyihiin, awood ballaaran leeyihiin. Iiraanna waxay isku xoreysay inay gantaalo niishaabkooda sugan yahayna leeyihiin. godkii ay gelisay Israa'iilna ay tahay mid ayna kasoo bixi karayn. dadka qaar waxay sheegayaan waa bilowgii dhammaadka Israa'iil iyo gumaysiga ay ku hayso dadka Falastiiniyiinta ah. fursadda ah in wada hadal la galo. qorshayaashii ay hore miiska u saartay Iiraan oo nin qoraaca uu soo gudbiyey hadda kuwa daawadayaasha aan u sheegnay ayaa waxaa ka mid ahaa wargelinta inuu Mareykanka dhaafo wadanka Iiraan, dowlad Falastiiniyiintu leeyihiin la dhiso,
in Israa'iil hubka nuclearka laga qaado iyo qodobo la mid ah Mareykanka waa ku dhib badan tahay inuu waxaas laqo awoodiisana wuxuu islahaa wadamadan waaweyn hadda jira adduunku isbedelayaa awooddaada ku tijaabi Iiraan waxa muuqata inay waxba ku qaadan Mareykanka waxa uu sameynayo hase ahaatee waaba yareysataba waa tahay maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadayaasha way mahadsan yihiin inta ayaan ku soo gabagabeynayna caawa barnaamijka daawade waad ku mahadsan tahay daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horey aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waana mahadsantihiin mar kale nabadgelyo